Soomaali dhalinyaro fanaan u ahaa maxaa la yiraahdaa xaqiiqda marka aan kaga hadlo horta walaalkay daahir uu iga badiyay ana hadda inay sheegayo uu iga badiyay YouTube-kiisa maanta gacantiisa ku jira YouTube-kayga walaalkay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha social media daahir calasow waa ku qaldamay mar dambana ma dhaceyso balanaana qaadaya walaalkay boqolkiiba boqol ha iga raal ahaado inuu dhalinyaradeedii asaaga iga reebo ma rabo gudoomiyaheena waaye waa aaminsanahay waana jecelahay mar dambeetana qalad kuma sameeynayo daahir calasow walaalkayga macaan boqolkiiba boqol iska cafi waxaan ku leeyahay saaxiib mar dambana ma dhaceyso niyaho waa kugu qaldamay Soomaali Maxamed iyo daahir calasow waa ku qaldamay wuuna iga badiyay bismillaahir rahmaanir rahiim shalay damaad baa dhacay waxaan marka hore rabaa inaan tacsi u diro gabadhii reer Nuur Axmed ee reer Waaryahan dhulbahante ee shirka ku geeriyootay ehelkeedii qaraabadeedii waxaan leeyahay sabir iyo Allah naga siiyo idin jannada firdawsa Allah geeyo waxaan rabaa inaan inta ku daro wiilka dhaawacmana Allah caafiyo wiilka Sharmaaka Cabdinaasir ahaa hadda la yiri waa la xiray garow ku xiran yahay waxaan leeyahay Allah u boogadhayo kiiskana Allah u fududeeyo reer Puntland waxaan leeyahay kulli taas mag bay tigi doontaa magtaas ka qayb gala oo si degdeg ah wiilka looga bixiyo magta intaas arrimahaas ka leeyahay waxa ay soo haray maqaayadii Sharma Boy waxaan go'aansaday in aan wareejiyo oo maqaayadiisa furaheeda aan faraha ka saaro waxaan rabay in dhalinyarada u shaqeynaysay aan ku wareejiyo laakiin dhalinyarada wali caay iyo dulmi iyo report bay igu sameeyaan oo emailkiisii officialka ahaa ayuu wiilkii deeq darajay wali iga soo dacweynaya waa ninkaasi anigu waxaan kala helnaan leenahay marka hore tolnimaan u xeerinayay laakiin dulmiga haduu wali igu wado deeq darajo aniga asaga wixii aan kala helno ayaan leenahay likaaca inay wali ku sii jirtaa u maleemayn kibir qooq inuu hayaa wali u maleemayn marka aniga asagu hadda waa arkay reportka xalay uu sameeyay wuxuu sameeyay iyo qaladaadkiisa waa arkay emailka Sharma Boy wali isticmaalayaan Sharmaaka aartay isticmaalayaan dhimala laakiin adigu ninkaas iyo aniga Sharma Boy waa iscafinay wari dhamaantii muhiimadda taa weeye maalinta uu ka soo baxo xabsigaana wixii safartan ka saarayaa laki xaaji wacays baa ila hadashay guddigay ka mid tahay Cabdisaaq Anshax laki xaaji wacays Cabdiqaadir Koronto Liibaan Jigjigo ninkii Cabdiqaadir Umar Cabdi Musa Cabdi Umar waxa weeye group dhan weeye dadkaasi fanaaniinta ah iyo wariyaasha ayaan arintaas u xil saaray maalintii oo wiilka diyaar yahay wixiisaas passwordkiisa iyo wixiisa faraha ka saaraya waxba u raacamayo sababtoo ah iminka waxa la yiraahday hadoo dhibdho dhawaqa beel beesha isaga hadda iska haysta haysataa marka anigan uu darsamimayo raali gelintiisina waa qaatay cudurdaarkiisina waa qaatay hadal hooyadii midgaara hadal badan micna sameeymaayo video ugu dambeeyay ee uu soo dirana waa qaatay waa kana idinkuna ila qaata saaxiibayaalow oo ila daawada waxaan salaamayaa halkan Soomaali Maxamed baan ka salaamayaa niyaho anigu nin dhalinyaro ahay xaqiiqda marka aan kala hadlo Soomaali Maxamed iyo waxaan jecelahay in aan maxaa la yiraahdaa aan Soomaali dhalinyaro fanaan u ahaa maxaa la yiraahdaa xaqiiqda marka aan kaga hadlo horta walaalkay daahir uu iga badiyay ana hadda inay sheegayo uu iga badiyay YouTube-kiisa maanta gacantiisa ku jira YouTube-kayga walaalkay waxaan u sheegayaa gudoomiyaha social media daahir calasow waa ku qaldamay mar dambana ma dhaceyso balanaana qaadaya walaalkay boqolkiiba boqol ha iga raal ahaado inuu dhalinyaradeedii asaaga iga reebo ma rabo gudoomiyaheena waaye waa aaminsanahay waana jecelahay mar dambeetana qalad kuma sameeynayo daahir calasow walaalkayga macaan boqolkiiba boqol iska cafi waxaan ku leeyahay saaxiib mar dambana ma dhaceyso niyaho waa kugu qaldamay Soomaali Maxamed iyo daahir calasow waa ku qaldamay wuuna iga badiyay waayahay haddaad ila daawateen muuqaalkaas raali gelinta ee Sharma Boy oo ii soo diray
WhatsApp-kayga igu soo diray uu soo geliyay YouTube ma taqaanaa meeshiisa TikTok-giisa meelihiisa uu soo geliyay waxaan qabaa walaalayaalow waxa la yiri xasuustaa ma xiriiriyo yankaas waxay lagu sameeyay kare waa lagu sameeyeen annaguna wixii aan aarsan karnay ama isaga xiri karnay waa sameeynay waxaan qabaa in inta arintu lagu soo afjaro ina arimaheeni kale aan u jeesano waxaan rabaa kale inaan laba kelmadood ilaahdo wiil yaado deeq darajo oo aniga aan adeer ugu aadanahay hadii la xushmaynayo oo Nairobi joogo deeqow bamba furan baad ku ciyaaraysaa waa kugu celinayaa adiga iyo raga kalente ee aniga iyo dulmiga la daba joogo wax isku darsan aniga iyo waxay arin naga dhaxaysaa deeq ninkii la yiraahdo Sharmaake Cabdinaasir waana ka heshiinay deeqow bamba furan baad ku ciyaaraysaa hadii ehelkiisa maqlaya wiilkiina hadda wiilkiina oo taliya hada u tali weysiin waxbaan iska dhaxaya eedna male waxa la yiraahdaa hawiye waxa dila qaar saarana dila hawiye waxaan rabaa kale inaan u mahad celiyo dhammaan dadka Soomaaliyeed taageerayaashayda habaqlaysa group qabiilka aan ka dhashay ee beelweynta hawiye wiilasha iyo gabdhaha dal iyo dibad i garab istaagay ee muujiyay midnimada iyo wadajirka waana taas tan aan ma taqaanaa wax ku noqon karno waxa la xaqiijinayaa heshiiska aniga iyo Sharma Boy aan galnay ama Sharmaake Cabdinaasir aan galnay wuxuu dhigayaa inaan mar dambe la soo gali karin maqaayadiisa laga shidi karin heesta farmaajo fanka ka ahay wuxuu dhigayaa inaan mar dambe meeshiisa maqaayadiisa aan soo gali karin heesta la yiraahdo awooga kursiga ka jiray asaga wuxuu leeyahay waa hees hore laakiin anigu waxaan ku yiri heshiiskeena ka mid tahay war hadduu labaas igu sameeyo ogaada Soomaaliya inaan dulmi badan ahayn ninkaas anigu wixiisa kaba taaban hal heesuu leeyahay ma tirin wax qalad kuma sameyn wixiisa waa ku waasa hadduu soo geliyay ogaada Soomaaliya uu iga qaldan yahay ogaada Soomaaliya uu iga qaldan yahay haddaba ogaada haddaba hal ogaado wiilka deeq darajaahi 3 maalmood oo ah 1 2 3 ehelkiisa qaraabadiis u qabtay haday ninkaas dulmi ugu sameeyay wax iga dhihi waayaan waxbaan iska dhaxaya waa dhaqan meel bay ku socotaa baashaano meel waxba higle adigu waxba iska dhaxaya haddaba waxba leeyma sheegin waraaniga qof ma dulmiyo waraaniga qof ma doonto waroy dadkaygana hay nabad geliyaano dulmigana heega daayaano xoogooda iyo ma taqaana xaniyahoodana hala fulaan ee shaqeystaan iyaga nashta iyo washwashtana ma taqaana hala joojiyo ugu dambeyn waxa uu faa'iidsanayaa fanaan Soomaaliyeed hadaa fanaan tahay deegaankaaga iyo dalkaaga oo hees ciidamadaada dhiirigeli laakiin kaliya taliyaasha dadkeen dhamaynaya uma heesi kartid hadaa u heesisidna noo imaamaysid hadalkaasi waa inuu ka dhacaa dadkeena ku ka dilaya ee xumaanta sameynaya ee gumaadaya adduunka kama jirto walaashay ku dhacaysa qof baa mas'uul ku xiran ina aabo tiraado may okay adigu waxa ay soo haray wiil ay wasrax yiraahdaan oo Ethiopia ka yimid dibdaba ka yimid masrax yani wasbaranayna inta asbaranayna ka horna anigu ka hadli ma arintaas وهي دار على سعودية دويشة كذا ومرة ثانية يارسي حابق لي صوي